marka taa tahay waxaan barnaamijka live buu ballanto ahaa laakiin live kama dhigin xoogaa waan iska xirtay maxaa yeelay live-ku weligay ma soo gelin waan ku cusbahay haddii aan ku sameeyaa waxaana ka baqay inay wax iga si noqdaan xaafadna waan joogaa oo aan keligay ahayn oo reerkii iyo ay joogaan marka meel khaas oo ii xiran ma aan arag marka waxaan sii bal keliya iska dub marka ay hadday waxay halaabaan hadday iska tir oo ama iska hagaaji ma garanaysaa cabsi waa yara gashay wax walba markaad qaadaysid waa inaad ka fiirsataa wixii ma ogtahay waa inaad wixii ka fiirsataa maxaa imaan kara maxaa magaciisa waa inaad ka fiirsataa weeyaan barnaamijkan aan maanta doonaya halkan aan kaga hadlo waxay ku saabsan tahay ururka naafada ay ku saabsan yihiin horta waa iga digniin oo haddii aysan dani kaa haynin inaad dhegaysato ururka naafada tacadiyada haysta iyo sida macnaha loo garamaray iyo meelo badan baan rabaa inaan taabto runtii oo weliba xataa qaarkood ay yihiin macnaha oo dhib gudaha yaa lasii gelaya moogtahay marka haddii aysan dani kaa haynin inaad dhegayso waqti iskaaga lumin waad garanaysaa meelihii aad macnaha aad waqti ku lumin jirtay meelaha iska aad insha allah haddii ay dani ka haysatana insha allah dani ka haysana aan bal waqti ku lumi kartaa halkan insha allah waxaan aad isugu dayayaa inaan soo gaabiyo ilaa ay xad barnaamijku uu dheeri haddii la yidhaaha laga wada hadlo meel walba hala taabto waqti dheerna wuu qaadanaysaa anigu waan daalayaa idinkana waa ku daalaysaan laakiin waxaan rabaa inaan ilaa ay xad intaan soo gaabin kara aan soo gaabiyo marka 3 qodob baan u kala qaaday saddex intaan aadin barnaamijkaasi aan u kala qaaday intaan aadin horta maxaa igu kalifay taas moogta waa arrin loo baahan yahay in la ogaado weyn maxaa igu kalifay inaan barnaamijkan duubo inaan maanta intaan ilaa waxaan social media iyo meelahan in badan bay jireen moogtahay maanta maxaa igu kalifay horta walaalayaal inaan moogtahay wax walba waa inay sabab inuu jiraa sabab hadduu jirin waxaa weeyaan dee waa iska hadal caqli maaha waxbaa igu kalifay wixii aan dhowr arrimood baa igu kaliftay awalna xanuunku iska jiray runtii awalna xanuunka uu iska jiray ma garatay laakiin markuu xanuunka ka bato oo kuu soo noqo waxaa laga yaabaaba in lagugu dhaqaajinayo lagu leeyahay hawsha gal xag laga wado qadartana meel xag mar walba xag ka socotaa garanaysaa horta marka ugu horeysa maalin dhexdaasa ayaa nin ka mid ah beesha bahweynta naafada ayaa ii yeeray wuxuu igu yiri meel baan hawl oo agency aan wada kaalay meesha iga hadal meesha baan ka hadlay marka meeshii runtii buuq baan ka dhaliyay su'aal baa lii weydiiyey su'aashii baan waxay ahayd maxaa ugu daran oo su'aasha qaabku ninka u sheegay way duuban tahay meelahan hoose ayaan kusoo shargalay ka fiiriya laakiin jawaabteeda waxay ahayd oo weliba si fiican macnaha aan ugu daboolay waxaa noogu daran waxyaabaha dadka Soomaalida aan kala kulano waxa weeyaan waxa ay naga aaminsan yihiin haddaan nahay bahweynta naafada waxa ay naga aaminsan yihiin ayaa igu daran baan ku iri waxay naga aaminsan yihiin inaan nahay dad shayaatiin ah waxay naga aaminsan yihiin inaanu nahay dad balaayo ah waxay naga aaminsan yihiin dad lagu soo dhex tuuray inaanu nahay waxay naga aaminsan yihiin dad xun inaan nahay ma garatay waxay naga aaminsan yihiin qumuyooyin dhex fadhiya inaan nahay oo in iska jira ay fiicnaan lahayd waxaasay naga aaminsan yihiin arrintan waan sii sababay waxaan ku sii sababay intaaba waxaa sabab u ah aflagaadadooda ay macnaha in aflagaadinayaan adiga waan sii waday qodobkaas waxaan doonayaa hadda inaan ka hadlo ma dhowaan rabaa inaan ku bilaabo macnaha xiriirka naga dhaxeeya oo ma dhowaan inaan ku bilaabo marka ma raba inaan hadda sii kala moogto ereyga markaan xoogaa uu waday bes marka dadkii way dhegeystay marka meesha waxaa fadhiyey rag madaxa oo weliba nin madaxa oo yaa fadhiyey iyo weliba kuwa ka socda district schoolka iyo kuwa waxaa fadhiyey madaxa oo aqalka senadka ka socda iyo house ma aqaan miduu yahay laakiin aqalka senadka ka socda marka ninkii aniga af Soomaali baan ku hadlay gabar professorada oo college wax ka macluumaad ka ah ayaa u turjumaanaysay oo meesha fadhiday moogta ninkii horta wuu ooyi gaarayba uu soo kacay oo magaciisa markii dambe hadlayo ilin baa kusoo istaagtay ma garatay dad meesha fadhiyayna waa la yaray taabtay hadallaan ku hadlay
marka markay saa tahay adi meesha lagu kala tagay ma garatay sidii waan ku kala tagnay niyo telefoona ay ugu soo dhacay dadna caadi macnaha horteeda anoo hortaagan bay qabsadeenba oo yiraahdeen maxaad gaalada waxa uga hor sheegtay macnaha Soomaali waxay dadka naafada ka aaminsan tahay maxaad gaalada uga hor sheegtay horilla anaga u haranay ونيو قالadaas intaad xushmeynaysid ama aad ka baqaysid ma ilaahay ka baqid oo ana walaalka aniga xushmeys ha ani ma tiraahid wax jiraan ka hadlay intaad gaalka ka baqaysid ma aniga i xushmeysid oo ilaahay ma ka baqid horta marka hore ilaahay wax raali kama ahane ha haddaad xurmeynaysidna intaad gaalkaas aad wajiga ka raadinaysid ana walaalka ma wajiga raadis ya taas way taawatay midda kale oo itaawatay waxa kamid aha oo wali arintan inaan maanta soo fariisto ay ugu kaliftay barnaamij ma YouTube kaas iska daawada mood waa school oo marba waxaad ka baranaysaa marba magaciisa meeshan kalik iska si anigoo iska kalkalsay nin baa igu soo baxay marka oo wariye hore ahaan jiray oo Cabdilaahi Hereeliya marka wuxuu tagay meel Nairobi la yiraahdo nin Cabdi Cumar in la yiraahdo marinay Cabdi Cumar oo la magaciisa meel baan ku qortay computer hadii ku qoraya computer meel baan ku qortay shahaada sameeyay shahaadadaas mar haddaan ninka arkay aan farta ka saarnaa raba wali ama meesha aan ku soo sheer garay ma garatay nin buu u tagay Cabdi Xasan la yiraahdo Cabdi Cumar in la yiraahdo marinay magacaas inaan hilmaami karo lama ahayn laakiin Cabdi Cumar baan marinay ninkaas isliib wuxuu ku leeyahay dukaamo iyo isliib ku leeyahay marka ilaahay baa ku soo reeday kulli waxan baa ku kalif ma wanaagu isaga dhashayba ma dad naafa aha la dhashay oo magaciisa uu naxariir yarehe taabtay ma kulliba ninkaas waa nin wanaag u dhashay buu ahaa nin wanaag ilaahay ku dhaqaajiyay dukaamadii buu wuxuu shaqaale ahaan u qortay dad ogoolayaal ah in qofka naafada ma ogtahay shaqaale iska qoran ma aha haddii waxa la fiirinaya inuu shaqadan ka soo bixi karo marka isaga ilaahay wuxuu tusay dadka ogoolayaasha inay shaqadan ka soo bixi karaan dadkii buu naafa ahaan u qortay marka iyo shaqaale ahaan u qortay ogoolayaasha boqolkiiba boqol shaqaale hadduu qortay 65 waxaan ka dhigay ogoolayaal oo qayb cashier-ka ah qayb sanitation-ka ah iyo nadaafada qayb bakery iyo rootiga sida loo dubo meelahaas ma garanaysaa maqalladoo dhan wuxuu yiri looguma tagaba cashier-ka looguma tago laba dukaan iyo anuma waliba yihiin supermarketyo waaweyn ayuu isli ku leeyahay marka ninkii baa marka Cabdilaahi Hereeli baa weydiinay YouTube-ka waxa la yiri marqaatu fogastaabali YouTube galiya Cabdilaahi Hereeli media Nairobi iska gali waan ku soo baxaysaa meelaha galgali marka ninkii wuxuu yiri maxaa marka dhagoolayaashii buu ka sheekay ma sha Allah dhagoolayaal far badan baa taa u wareystay heer xataa waxay gaareen isha dawlad baa Kenya xataa la soo xirtay qaybta waaxdii oo dhagoolayaashii la soo xiriiray oo yiri noo soo tababar adiganiyo dadku dhagoolayaashu intuu tababaro iyo qaar xataa isha iyo xataa shaqo u raadiyaan isli oo dukaamiyaasha dad baa xataa ku daydan dad xun ma aha moogta dadku dad xun ma aha walaal wax u sheegay laayihiin dad ganacsatada inta u yimaadeen yiri wax fiican baad sameynaysaa qaar dad kamid ah laakiin majority-gu waa waxa iga dhiidhinayo hadda macna waxaan la hadlayo majority-ga Soomaalida waxay dadka naafada ka aaminsan yihiin oo had iga hadashiinay weeyaan ma garat laakiin dadku qaar baa macnaha wanaagsan oo ma fahant dad baa xataa waxay leeyihiin noo soo tababar dhagoolayaasha annaga aan shaqo siinay ila wuxuu arkay dadka naafada in laga tago aan shaqo la siinin moogta oo aqoon leh kana aqoon badan ma garat marka wariyihii baa weydiiyey arrintan u jeeda marka wariyihii maxaa kugu darnaa ku yiri marka marbaad wax iska dhigaysanaysaa moogta marka su'aasha markii jawaabta waxba iska filaysaa marka waxaan isiri wuxuu dhihi doonaa waxa igu darnaa dadkan dhagoolayaasha tababarkooda iyo la qabsashada ay meesha dukaanka la qabsanayaan iyo macaamiisha iyo magaranaysa customer-ka iyo say macnaha isku fahmi lahaa waxaas iyo yaa igu daran buu dhihi doonaa marka maskaxda moogta million times bisa isku wareejinaysaa ma uusan dhihin saas wuxuu yiri waxa igu darnaa Soomaalida igu darneed way qabsadeen waxay ugu dhahaan biir maalin walba oo ilaa hadda macnaha dhageyso kulli bada aniga sida exactly eray sidoo ahaa laakiin macnaha saas ah macnaha wuxuu ahaa waxa igu darnaa maagitaankooda iyo afxumadooda ay leeyihiin
waxay leeyihiin buu yidhi inta adoo heli kara dad dhiga qaba maxaad dhogolyaal ku falis laa ilaaha ila allah maxamed rasuul adoo heli kara dad dhiga qaba maxaad dhogolyaal ku falis iyo soomaali leeyihiin taas ay ugu daray taas ay ugu daray marka taas waa kow waa arrin aad i dhaqaajiso wey runtii midda kale adiga meel la yiraahdo turkigaan tegey marka meeshii baa marka xaafad baan reerku deganaayeen xaafadda markaan kasoo baxa marka jaranjeero yar oo laba dhibcood ah laba tallaabo ah yaa yara dhibays wurjeer baan watay moogtahay marka meeshii baan anigii islaantii ii qabo bal meesha waan ku fariistaa marka kadib wurjeer kor iisoo saartaa korkaan iska fuulaa nin baa daaqadda iga arkay daaqaddu iga arkay uu soo degay anoo meeshii markaasaa haddana mid kale yuu daaqad kale uga yeeray waxaan tusi doonaa hadii la yidhaha waa farta itaabsii wax oo magaciisi ama jiraan waa itaabsii waay wax walba ma garanaysaa marka ninbaa yaa u yeeray mid kalaa yimid ninkan daaqadaana nin saarnaa ninkaa inuu ahaa kan wey fulaanad gumay kaa wey kaa daaqada saarnaa mid buu u yeeray mid kaluu kaasaan horta arkay kaa markaan arkay wuu ii yimid ninkaas macnaa ninkaa wuu ii yimid markuu ii yimid baa meesha markaan uu arkay iyo haddana mid kale u yeeray kiina mid kale u yeeray xaafada intaa waa laisugu yimid meesha ma fahamta markaan arkay inay danaynaya waxaan ku yiri meesha alwaax ii saara alwaax yar oo aan saa aan ku gudbo warmayaa la yidhi xaafadda waxaa laga soo qaatay iyo alwaax yirahdii aniga ku yiri markaas xaafaddii afkoodii lagu wada hadlayo majarafadii iyo shamiitadii iyo dhagaxaan meelaha yaaliyaalay wixii baa lasoo qaatay ahlanbi baa lagu qaaday meesha waa la galayba iyadoo ilahay ajeyna waata nagarat oo faceka ugu dambeeyey maraya anna marka waxaan fiiriyey niyo wax walba moogtahay adduunkan waa la isku fiiriyaaye dadkii aad ka soo tagtay ee dadkaadii aad ka soo timaad dadkii kula dhashay ee soomaali ahaa iyo dadkan niyo xaggee bay isu jiraan xaggee bay isu jiraan ma garanaysaa saddex arrin bay u kala fi weliba waxyaabaha aan doonaya ka mid tahay arrimahan oo kale waan ka hadli doonaa dalira waan ka hadli doonaa marka saddex arrimood baa calaa kulli xaal qolyahaasoo xaafadaha kasoo kala yaacay oo bahashaas buundadaas aan wurjeer ku fuulayay labada saacadood wax ka yar ku dhisay oo aan shilin iyo waxba i weydiinin ninkan Nairobi wholesale ku samaystay inta la kaalmeyn lahaay oo la ammaan lahaay loo duceyn lahaa lagu yiri waxaa isku lugeynaysaa iyo barnaamijkaas aan meeshaas organization ka hadlaya lagu qabsaday lagu yiri gaalada maxaa arrimihii baan maalin iyo habeen in muddo ugu wareeganay markaasaan haddana weliba ma fududaanin nin aan walaalinahay baan la hadlay waxaan ku yirinayo arrintaas marka war haddaan ka hadlo dhag wey ugu yiri haddana waan ka istiqaaraystay runtii wax walba markaad ku dhaqaaqayso waxay fiican tahay ilaahay in aad barido ka istiqaarayso marka waxaan ka istiqaaraystay insha allah cidna dhib u geysan mayno niyadana way fiican tahay wanaag u maarmna ilaahay dartii baan naga tahay cid aan hadda wax ku weydiisanayno ma laha alxamdulilah ilaahay wuu noo nimceeyey cidaan tugsanayna ma laha waxaan dadkanaga baan leeyahay soomaali ha hagaagsanaadaan garanaysaa hahee hagaagsanaadaan marka saddex qodob baan kaga hadli doonaa
inuu waqtiga ii saamixi doonana macnaha inay ugu dheeraatan waan ka baqayaa oo aan ku daalo haddii aan wada dhamayn karana hal fadhi waan ku wada dhamaynaya qodobka ugu horeeya waxaa weeyaan xiriirka ka dhexeeya Soomaali iyo dadkeeda naafada ah watan kor meeshan koraan kusoo qoray shalay aan kusoo boskariyay qodobka labaadna waxaa weeyaan xiriirka ka dhexeeya dunida inteeda kale dadkeeda naafada qodobka saddexaadna waxaa weeye muhiimadda ku jirta in la wanaajiyo xiriirka dadka naafada in la wanaajiyo muhiimadda ku jirta iyo wax laga helay iyo wax laga faa'iiday ilan wuxuu haddaan waxba laga faa'iidin maxaaba laga doonayaaba faa'iido laga helay maxay tahay taasan taabanayna insha allah ilaahay wuxuu ka yiri subxaana watacaala horta marka qodobka ugu horeeyaan gelayaa xiriir ka dhexeeya Soomaali iyo dadka naafada ah horta naafo maxaa la yiraahdaa naafo horta waa curyaannimo waa cillad ama ama xanuun qofka ku yimaada xanuunkaasoo ka xaniba qofkaasi dhaqdhaqaaqii uu ku shaqaysan lahaa ama uu ku dhaqdhaqaaqi lahaa ama uu dhaqdhaqaaqii caadiga ah ee aadanaha lagu yaqaanay xanuun ka xanibay ayaa horta naafanimo iyo curyaannimo la yiraahdaa xanuunkaas wuxuu doonaa ha noqdo nooc doona ma noqon karaa wayna kala dadaran yihiin hal mid baan la dhihi kara way ugu daran tahay inta kale niyahow mid kale ka daran maskaxda oo xubnaha inteeda kale lagu hogaamiyo ayaa ugu daran waa xanuun waxa weeyaan qofku maskaxda haddii eber ka tahay waxa weeye shadaan weeyaan luguhu wax ma taraayaan inaan luguhu waa inay meesha u socdaan yaqaan taqaano waaye maskaxda waa inay maskaxda hogaaminayso ama meesha macnaha inay nacfi ugu jiraan weeyaan gacmaha sidoo kale marka meel walba xubin walba aadanaha ka mid ah waxa lagu hogaamiyaa maskaxda hadday eber noqoto meel walba eber marka xanuunkaas ugu weyn xanuunka ku inta kale indhaha dhagaha magiciisiga kulli waa isku wada waa waxa weeyaan midba waxay haysaa shaqo kale oo mid kale aysan qabanin shaqo aysan mid kale xubinta kale aysan qabanin ay haysaa marka mid kale macnaha oo la leeyahay waa looga maarmaa maaha waa mid kale ka daran laakiin way ku muuqanaysaa inay kala daran yihiin lafteeda laakiin marka hadda dhexgalkeeda waxaa muhiimada noogu jirto waa naafanimo marka isku soo duuduubo naafo iyo curyaannimo waxaa la yiraahdaa xanuun ka xaniba qofka dhaqdhaqaaqi caadiga ah ee aadanaha lagu yaqaanay hadday shaqo tahay hadday maalitaan tahay socod waxay doonto ha ahaato dhaqdhaqaaqi caadiga ah ee aadanaha wax ku qabsanayay ee noloshiisa ku maareynayay wax allaale wixii ka xaniba xanuun allaale xanuunkii ka xaniba ayaa macnaha waxaa la yiraahdaa naafo ama curyaan nooc doona ha noqdee hadda sokorta hataa waa lagu daraa sokorta hataa wadamada qaar baa naafanimada geli maxaa yeelay qofka sokorta xanibaad buu yara dareemaya ma garatay dhiigkarka iyada lafta waa la sheegay suuxdinta awal baa lagu daray mar horeba taas waa la ansixiyay qofkaas waxa weeyaan waa naafadu ka mid yahay ma garatay autismka waxyaabahaas oo maskaxda waxa hadduu cudurka maskaxda yaraha leeyahay suuxdintaas ugu dhow ugu fudud isaga waa automatic waa horu ka galaya bahweynta naafada marka way saas weeyaan naafo taas la yiraahdaa markaan u dhaadhaca marka niyahu xiriirka cid kale anaga waxba nagama gelin Soomaalida iyo naafadeeda ka dhexeeya markaan u bilaabo aad buu u yahay ma fiicna adduunka meesha ugu hooseeyo ayuu taagay meesha ugu liidata Soomaali marka la fiiriyo Soomaali ay walaalayaal maraya runta marka laga hadlo oo Ilaahay og yahay oo aanan wax been abuurasho iyo magiciisa aysan jirin Soomaali marka la yiraahdo dadkeeda naafada ah xiriirka ila leedahay aad bay u xuntahay aad bay u liidataa marka qaabkay u liidatana waxaad ka garanaysaa horta marka ugu horeysa qofka haddaadan wax taraynin waxtarka intaan la gaarin wax walba aan la gaarin horta afkaada qofka waa inuu ka nabad galaa xabiibkeenu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alayhi mu'min maxaa la yiraahdaa man salima almuslimiina lisaanuhu wa yaduhu qofkaas mu'mina qofka ay ka nabad saas ma ahayn ina qaldana laga yaabaa man salima almuslimiina lisaanuhu wa yaduhu marka qofkaas mu'min yiraahdaa waa in horta afkaada carabkaada waa in horta laga qofkan uu ka nabad galaa hadduu ka nabad geli waayo xadgudub baa ku samaysa carabkaadu ka nabad geli waayo xadgudub baa ku samaysa okay Soomaali maxay tiraahdaa marka Soomaali marka ay qeexayaan dadka naafada ah waxa ay ka aaminsan yihiin maxay yiraahdaan balaayo ilaatay ama lug la'aatay
وكما ما معناه وحلا فيرنا بالشو والبابا waxay aaminsan tahay suugaanteeda la fiiriyaa suugaanta iyo mahmaayadeedii how deep macnaha erey oo aaminaadan oo macnaha ay ku jiraan waxaa la fiirinayaa suugaanteeda la fiirinayaa waxaa la fiirinayaa isheeg maamaadeeda gabayadeeda ma garanaysaa way ku maamaahaan marka balaayo jiis curyaanimadii iyo balaayo macnaha walaal ma garanaysaa waa walaala la yiri balaayo ama ilaa aatay ama lagu laatay haddana waxaa la yiri janno ma bagalayo jiisba saas ka aaminsan jiis janno ma adiga fiiri waxaasaa loola jeeday iyo magaciisa hataa la timo adiga waay ha maxaaba horta jiis iyo janno bagala maxaa keenay waxaasaa loola jeedaa maxaa adiga horta mahmaayadaada iyo halqabsigaada iyo aad ninkan iska dhibanay maskiinka ee curyaanka horta maxaaba kuu geeyey baad horta exactly jiis janno ma galaynin ayaan aaminsannahay inaad oola jeeday saasaana annaga aan nagu lifaaqan oo macnaha qalbigana dhag ku ah inaad oola jeeday jiis janno ma galo inuu jiis janno galay waxaa kaloo tiraahdaa siduu ilaaha dadka ka qabtay waa shaydaan dadka aaminsanta dadka ilaaha ka qabtay macnaha halheeskaaday ka mid tahay soomaaliya halheeskeeda oo maxay yidhahdaan ilaahay baa dadka ka qabtay ilaahay baa markuu ka yaabay ka qabtay wuxuu ilaahay sidaa oga dhigay buu qabaa waa shaydaan yur markuu hadlaba ma garanaysa laakiin mid baa soomaali hilmaameen dadka inay mataacu leeyihiin waa addoommadii ilaahay baa xafdisanay ilaahay baa sida u galayna waxaa weeyaan waxa waaye adaa lagu jeedaa adiga macnaha ayaa lagu fiirinaya macnaha reactionkaadii waxaad ka samayso ma garanaysaa ama waa lagu dalacsiinaa ama waxa waaye dhulkaa lagu tuuraa ma garatay marka tiina maadan fahmin marka aaminaada soomaali ay dadka naafada ay ka aaminsan yihiin waa noocaas waay dad xun inay yihiin dad shaadiin inay yihiin dad balaayo inay yihiin dad qumiyooyin inay yihiin dad lagu soo dhex tuuro inay yihiin dad ilaahay ka qabtay inay yihiin ilaahay baa dadka ka qabtay biyaan maqan haddii ka dadku rogi lahaa ilaahay baa dadka ka qabtay haddii ka dadku rogi lahaa waa iska hadlay adi laakiin ereygaas waxa uu ku fadhiyo iyo macnaha dadkan meesha adiga laftaada ku geynayso ma ogid moogta soomaali waa iska hadlayaan ilaahay baa dadka ka qabta dadku rogi lahaa shaydaan waa macnaha ibliis ilahay dadka qabta way balaayo taas waa taas aaminaada noocaas ka aaminsan marka waxaa yar qisooyin yaraan gagalaya insha allah aniga magacyo ma sheegayo adiga oday adeerkaya magaciisa waa laga yaaba inaan sheego laakiin dadka kale magacyadooda ma xusaayo qisadaan sheegaya maxaa yeele magacu qofka isagaa iskale uu kugu qabsan karaa ma garat laakiin qisadu qofka ma laha qisadu hadday dhacdo waxa waaye oo xeendaabkii ay iska lahayd ay ka soo baxdo inaan sheegaan wax ku leenahay annaga waa sheegaynaa laakiin qofka magaciisa haddaa sheegto wuxuu ku dhihi karaa magacayganiyo maxaa u sheegtay waa kugu qabsan karaa xadgudub inaad qofkii ku xadgudubtay adiga laftaada waxaan dambiilan noqon kartaa moogtahay marka annaga magac ma sheegin ani magac ma sheegay laakiin waxaan sheegaya wixii qiso ee dhacay maxaa yeele qisadu haddaad niyahu qisadan haddaadan doonayn in la sheego inaad xeendaabkeeda inaad ku haysaa ahayd xeendaabkeeda ka soo baxday adiga malihid marka bulshooyinta oo public waay bulshooyintaas kale marka oday adeerkayaabaa isna naafo ahaa marka naafadiisu waxay gaaraysay heer uu macnaha afarta adinba ay dhulka u yaaleen macnaha afarta adinba macnaha dhulka uu gurguuran jiray runtii way ka sheekeynayaan kuwa adeerku u ahaa ay dugsigu wada dhiganayeen iyo kuway walaalaha ahaayeen intan way ka sheekeynayeen laakiin ma oga sheekadaas inay taariikh gelayso taariikhday gelayso laga sheekeyn doono may oga maanta inay dhacdo insha allah waxaa loo cadaabi jiray cabdiweli sheekh daahir 3 maalin baa laga yaabi jiray inuu dugsiga ku xiran jiray markii uu ama 10 ka soo bixiyo magaciisa 3 maalin oo ardayda dhan ay garaaci jireen kulli say suuni shaafi waa lagu qaadi jiray 3 maalin sida shaydaanku kale loola dagaalami jiray shaydaanku kale sida loola dagaalamo cabdiweli sheekh daahir loola dagaalami jiray ma garat 3 maalin buu dugsiga ku xiran jiray markaasaa haddana waxaa ka daran dee hadallada kale iyo magaciisiga kale iyo waxyaabaha loo geysto hadii waxa weeyaan kusii fogaan hadda markii dambena wuu ka soo cararayba markuu ka soo cararay oo curyaannimo uga soo cararay curyaannimo
ولالدي ودور يتبع ولالدي عرياني ما وقع صاعر وكل إحنا ولان كريوات ما قرأت يوحي مقالوين كده حمر إيمانها الصاقلي هرجيسي حمر إيمانها الصاقلي قبيلة اللي جسد بكيني يقبض الوجه هجومي قرنيسها والله إني أو على شق عمون أكو عنونيس ها بل غيرك أو كذا شيء أنا أدفعه هذا أرنتان هيسدينا غيرك أو خاص كنت خاص كما ويسوق جريدون شال نبى يورمي عن صاحبه نبى يجيش كيني وكيني يبوي نين لقوا توري حرب بنان كذا علاني متردد هذاك لما بطوري ما بليستي هو بليستي روح عن لعبي كوا كتر بجرو مجلس الصومالي ونبى نوعاسا ما قرأت قبل هذا هذاك اللي كده بكينا يمجلس ولي قد اسكو ما يسقمين كوا ولا نين كلام قبي ملا أنا عبد الله شاطر هنا ولا قبي قبل هذا كده بكينا إنه معناه إبليس يا وشيطان وحكى لنا وقلب صداي عن كأهين إنه إلهي عريان كده ما يسجر وحكى وقلب صداي وعن كأهين إنه إلهي عريان كده وهو سومالي ضد النافذ أو حسكوا ضايع كل سؤالين ما قلت قف النافذ إلهي كده بس هو الفقوقة والعاية شيطاني ما لو حينا هدو فكرين ملك الجسد يرساس إلى الشيطان بطل لي ناقبت الشيطان ما قرنتها وحكاية عندنا على الحماة ضد كانوا حللي محيل الدقيلة يجين أو ما جيش جزاء وفاق ما ولا الصومالي كويس الصومالي أنا ميل الجوع نك عندنا وجو قبيل بلود له نك ولا لدي يدد كيس كسر عريان ما يكسر طورين ما لها الصومالي ملك من عندنا أنا مرة بعد عريم قبيل يأفد الصومالي كل أحد عضي ولا يأخذ أنا سير دعك مرة وحاول أفد المال وبنو يكرد عضي عد والبنو يكرد عضي عد والب قبيلة مثل اللي هذا وحي مالها كرد دعي مال والبنو يكرد عضي عد والبنو يكرد عضي مركا ياد كو أذن يا كأذن مركا وحا على الحماة أرنت الصومالي عام كا وحيتها ninka noocaas ah walaalayaal dadkiisii naafanimada ay ku soo tuureen qabiilnimo baa lagu dilay soo meel maray Soomaaliya kamid ah qabiil reer hebel kow qabiil lagu dilay meeshaas marka waxa la leeyahay habeen imaan lagu dilmiyo la leeyahay may wanaagsanaato waxaan ku jiray anoo yar baa waxa la igey xero xamar ku taalo oo FC la yiraahdo meeshaas fadhiga aan dayni ka sheekeynay waxa ka yara taabtay laakiin haddaan xoogo yaro waxaynaya waan yaraa marka xerada markii hore adeerkay baan adeerka hadda Cabdulla Shaqdaar baa ku jiray uu ku jiray marka xamil xeradaas uu kale marka xerada dadka waaweyn oo naafada ahaayeen dad waaweyn marka dambe ilmaha lagu soo daray hay'ad oo Canadian ah oo FFC la yiraahdo oo adi number of the organizations ka ahayd oo dawladda aysan wadanin wixii kale watan Allahu yaclam kulliba waxaa marka maxamed siyaad barre isku dhaceen oo hay'adii iyo shaqaalihii waa la yiri marka Allah u naxariistay madaxweynaha isku dhaceen iyo dawladdii marka waa la yiri iyagoo dhan mar dambe waxaan maqlay waxa looga shaqeeyay waxa looga shaqeeyay wax walba isma macna marka la arko meesha aad kaliya tamaarad wax walba lagu soo dhoomanaa oo tadal rabe marka meesha sa ku jiray adi marka dambe waan soo baxay qurbahan soo galay markaan qurbaha soo galay baan adi la soo qax العيري دتكي سديت سنة ناقبة مركز سديت سنة نرجوت أو أنا إيش عيالكي يراعي الله كان يعمل ذا ليه بركي يمكن أن قويسكي يعمل ذا يا قويس بين الليس مقرس كونه وين جوا وينين مركا سديت سنة بس سديت سنة نرجوتي انحرضنا سديتني سديتي يا الحري ويدولد اسكول عين ينوى العيري ما قرأت مركي العيري حردينا سيدي بقى واحد كده إنه حردي ولا حرد ما وحنا مرة يقول لي بقى ستيتن تضادي يجين العيرية لكن حرد ستيتي ولا حرد مركا كير صومالي أنتي لو ركتي كير صومالي إنه ويودي كل ويدي يا كدور بحياة يعني عفر بقول كدوات ده هاي ويودي كل وين حرد أفكار السوق حرد مركا هذه يعني ماشي أنصع على واحد تهاي صومالي تتكلم فضا وحكي أمسيين بان يعني هني موقت يحرك حد حيين وقادو حيه هذه الصومالية تيال أوتمد وسب برتي وعلى السوق حي مجلس هذا قربها عن سوق الله مركي ويب سايت كي وحياة صوب بالعمي أولي وهرمري www كا وهرمري ويب بيج كا يعني سكرها هذه مركز ما نهلا شو هاي دلفت حكي شغله سام بنجال الإشمالي هذا
hay-addii baan helay hay-addii baan daal ku sameeyay aan la xiriiray waxaan iri Kim gabadhaas magaca la yiraahdo Kim Baldish ii raadiya adiga gabadhii baa emailka baa lagu soo celiyay gabadhaas hadda nooma shaqeyso waa qof oo retire ah marka waxaad samaysaa emailkeeda oo kaasa la xiriir iyadii baan wacay ma email baan u diray telefoonkaygii baan u diray markii way soo wacday 10 daqiiqo gudaheed ay soo wacday magacii waxaan u sheegay taan garanayo qof aadan yiraahdo adigu kaliya ka joogo meesha waa ku aqaanaa magaciisa xoogana way yarahay ma garanaysaa sifooyinkii wax ka sheegtay in lagu taabtay imaad oo in lagu qubeeyay iyo aad baa u dabeecad xumeeyay waa yarahay ma garanaysaa waa inta aad baa markaad yareed waa maad ogaan jin isaa lagu ma garanaysaa marka adiga iyo u daalinin abaar markaan soo wareysanay tir Soomaalidii berigi sidii aan ku ogaamiyay mas'uuliyaad iska bedelay marka aan garan waayay su'aasha meesha iga wareysanaysa moogta maxaa sawayaan iriyo markaas waxay tiri Soomaalida berigi waxay ahaayeen qaab ilmu intay nagu soo tuuraan bas dib nagu soo noqon jirin macnaha dad naxariis daran bay ahaayeen ya hooyooyinka waliba waxay tiri dib inta loo keeno ilmaha oo naafada ah yaana dib dambena lagu soo noqon jirin ya dib dambena lagu soo noqon jirin marka waxaan ku irmaya hadda waxa waaye dib maxaa sidii magaciisa wax ka darban dhacay baan ku iriyo tiiba bal qaatiba dagaalo iyo dadka curaaminta ahaa kuwa kalena waa lagu soo kordhiyay inta lagu hay gacmaha la soo gogoy yay xibtin ugu soo ku baarayeen marka meesha ka baxay hadalkii waa yara taabtay moogta hadalkii waa yara taabtay waxaan wallahi niyo arrintii ma xasuustay dib waa magaciisa عجيب يعني gabar baa jirtay aan mar dambe haddii aan ku sameyn leeyahay aan isbaran doono iyadoo weyn xataa isbaranay oo xerada ku jirtay baa jirtay oo markii dambe aan ogaaday xerada qaabkii loo keenay maxay qaabka xerada loo keenay hooyadeed iyo aabaheed waxay markay curyaantay waxay isku qabsadeen qofkan curyaankana dhaafi iyo adiga labada waalid way kala roonaan karaan moogta waalidka mid kamid ah wuxuu dhaaf mid kale wuxuu may midna wuxuu may ilmaha curyaanka anaga guriga nama joogay midna wuxuu may sidoo la isku fara ma garat maalintii baa ugu dambeysay maalintii waa yaa ugu dambeysay hooyada inay aragto aabaheena dib magaalada iska galay oo reero kale iyo waxba iska raadsaday xeradii baa lagu soo tuuray iyada ma garat markii dambe iyadoo xerada la burin baa aabihii reer cusub samaystay xerada marka la xiriir wax yar koor buu iyo kala baxay iyo la baxay gabadh waliba waxaan maqlay inay eedadeed inay sabab u ahayd gabadha bixitaankeeda wax walba la sheegay meeshan cidii yani iga sheekeenaysa iga sheekayso fasaxayood aan magac ma sheegaya laakiin waxaan sheegay qiso public ah oo xeradeedii iyo xindaabkeedii ka soo baxday oo aan cid kala lahayn waan sheegay taas عيد يقبسون صدق وحواي هذا يسوي عدو يقبس أنا واحد يمهست محيري يدا حلا قصة حنداب كذي أي سكالي كسب هذا ما قعد أنا قفنا مجلس المحصاي وحالي الشيء قبل داسي إددت إن السبب واحد إن حلا على قبيه إددت إن السبب واحد يا أيام مغلى يعني مقولي ما كان رادين وحن وحياة بدل من رادين جري موقته محيري قبل برجي تنبأ مركان ساق حني درس بانوهين ما شاء الله يعني كودا لنا هذه قبلي وحن كوضع عريانيمو أي والد كده سكفرين أو لو صوت ورا هذا عن دبده من لو صنعون ما مرة أركي جرابه ويجي ماده مرة أركي جرا مقرنيسه لكن وحن نفل معين وحن مش جوجودن سنة كي والله يا بعد حمر ودنا وحين لك طيب توهم بلوك بأهيد سنة كي وحن مرلو إيمان سنة كي هذا حال مرلو إيمان وهل حافظ حمر نبى هل حافظ أهيد بس كسر جيد ما garanaysaa mataع الله dadkan waa waxa waaye Soomaali xiriirka ururka naafada leeyahay waa arin aad u xun ilaa hadda midda kale mar waxa islaada dadku markuu aqoon muusan lahayn iyo magaciisa jaahiliin baa ma dadkan jaahiliin dadkan islaamnimo ilaahay siiyay quraan baa ilaahay siiyay wayna yaqaaneen quraanka way aqrinayeen أفرتنا عم حافظ بالمساعد قرآن بكير ولا جا آخرني ما فهمت دول كلية ميكروفون كسر دول يا علم وينه مركب ده كان قرآن بإلهي سي
oo wax walba iyo xiriirka aadanaha iyo dadka magaciisa iyo naxariista iyo ixsaanka wax walba ka sheekeynay yaa ilaahay siiyey marka jaahilnimo horta marnaba loogu cudurdaari karo soomaali jaahilin bay ahaayeen ma garat waxa kaaga daran jujug meeshaada joog waa dhagax tataabisho iyo totoobyo sumid waa حتى مركز صوب حين ملاها يمادن أو البحنمة أنسراد الموت مركز البحنمة الصعد كم يتم مركز ملاك لا تذكر سووا رغمان واحد ضد حون يضو وناكسن وحاول كل مسا يضد حريرك إليه يصيد معناها حريرك خد حقيقي حتى وحي معناها هو ناكس أنا ما كم قناة مركز أركان حتى ضد كأنه بدلان سوما اسمه بدلان واس برتي تغنى يعني تغنى ناي كان ضد عقوبة سوما الصومالي لكن أنا نيجي ما هنا وخشة وعواي إني وأنا ضدك إني وأنا سنة أروح مدالين ما ضدك واحد ضد بس واحد ضبان كعنتي وإيدا شيء أفكوا قرار بسم الله الرحمن الرحيم ما قررني صح ليش شو ذي بالجوع مركا هذانا وحيس إنه جينا تغنى ضدك إني متاع الله هي متاع الله إني هي بس إنه جينا ما يوم وذاك أصلاً جرى على هني يقول عدنو أو مركا أيش أو هذا نول مغرنزا أو وحيقول يران ملاها وحريك يكون نفسه وحيقول يران هو العريان بين هذا الموت ملاها أن ربنا طابته كم هذا هو العريان هو الإندولة هو الدجولة هو السان هو الكيكلة هو إن الله لا إن توقف كاس إلهي ووحي يا الله جم ما عندي جاي تكب والود الجناية موت هذا عندنا مركا نكاس أنا تاريخي كلا قاعد وقام وراهي كل بنين هو أقول إنه هو حاجة إيش إن نبضانك يكفي عن يا أو عاقلة أو إيش إن أفتهنا أو دولتنا وحكسوها أو ما له كل حجري هذيك يعني وركو دالنا غيركم مركا أي ماشي أي كبر عليان بيدي كود لكن ماشي أي مركا لبض اللغة دي خلا كلام إسحاق بحيه وعجيب وينه إن فقد الله في الله عيد سماهن وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون إن اختلاف ثاسه أدون كان استخلاف كيسة هبين كان استخلاف كيسة إيمان وما خلق الله في السماوات والأرض وإلهي أبو ري أرض كسوة الآيات اللي معناها أرنتها محرمة إن في رسالة هذا الموت نينكي عيانك ويرين أولي ما كملها كشكين إن مرت يعني أنا مرة فتح ذلك إن ما سووا حياة مركب ملاها كشكين أيان وحي ما حنتس مو نجيان حنتس ما قراني صح إن مو نجيان أو ده واحد والبع عريان كده يدي شيء يوري لما أنت إن سوء اللي ما في عناه يكون شيء جاي ما قرأت هذا لبض يدي غلق عليه لبض بركاس اسكب بحين كرين أدعي دول بكينان يا كب بحنا إسحاق بحنا كي عليان كيويرا يا كب بحنا عجيب بلو حنكرنا يا أوتانجا نينكلا إسناد جوجي أو سنة قرابة إسحاق نينو وحوه استهيده ويوهستي ما شاء الله waa aad buu nii caawiyo waliba kaligeena ma dadka culimada iyo magaalada yimaadii aad buu uga warhayo oo kaar sameyn iyo soo dhaweynta waxa soo dhan ma garanaysaa hadda Australia meelaha soo jooga ninka magaciisa aan sheegay Cabdiqaadir Gudlaal iyo khayr Allah siiyo ma garanaysaa hay'aduhu haystay odayan kalena wuxuu haystay adiga nabadoon buu iska ahayo nabad meelahan ayuu joogay marka labadoodii baa lagu mashquulaya dadkii oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin labadan si isugu keen laayeen ama isugu diri laayeen magaciisa kan uu tago ka geekan mid baa ka sheekeynay maalin dhaweyd oo aan meesha magaciisa macna markuu ka sheekeynay hata wuxuu qaasoo kale way isqabteen magaciisa wheelchair-kii baa mid baa wheelchair-kiisa soo dhaqaajay markaas kii kale loo soo dhaw laba wheelchair baa watan moogta markaas mid kale loo soo dhaw markaas kan waa la soo riixaya kan waan taagna waan joogay markaas waxaynay laakiin shaaki qisadan inay marka dhacayso magaalada waan joogay laakiin meeshii ka dhacayso ma joogin suuqa هذا كان ولا سوري حيا كان معناه حلقة دينا ورواية كان ولا سوري حيا كان حاجة لقى سوري حيا معناها لبضي مير بكاك عزة من باشي يو حوله هذه يو قرت يو قضيان تدي ومضحكية من هايديه ومضحكية ما كان يزال لبضي مركب ولا شو كنا ولا شو درا موت من باكش كان يفهم بكرة دينا مركز هذا هبل كده بقي مركز هبل قبض مركز قرص صغير يا عجيب يعني
waxaas ma aha marka kaliya ma aha ilaa ay hadda taagan yihiin oo ilaahay ogyahay ilaa ay hadda way taagan yihiin wax tabti naafa ma tahay waxaa waaye marka waa dadkan waxaa waaye ku aragsan yihiin marka nooci dayna marna riwaayaday kaa dhiganayaan marna shaydaan baa tahay marna ibliis baa tahay marna balaayaa tahay marna janno ma tegaysid ehlu janno ma tihid nooci doonay kaa dhiganayaan hadda waxaa lii sheegay ninkaa Israel jooga oo gabar iga sheekeynaysa wax walba iska dhaafe bal ninkaas shaqaysan ciyaalkiisa iska korsanaya magiciisiga magaaladii oo dhan baa isugu soo baxday magaaladii oo dhan baa isagii waxay noqdeen magaaladii gurigiisii bay galeen xataa ma garata gurigiisii yaa lagu maxay meesha community waxbaa imaanaya moogtahay meeshii baa marka magaaladii oo dhan ninka markuu meeshii qabsaday waxaa waaye gurigiisii baa xataa la galay oo in la kala diro oo la kala gooyo in la kala gooyo oo ciyaalka xataa laga kaxaysto wax walba banaanka iska dhigay marka qolaa iga sheekeynaysa waxay lahaayeen ninkaas isagii magaaladii waay wax kale oo ninkaa lagu haystana ma laha waa curyaan baa tahay waay maxaa banaanka kusoo dhigay kartidii uu leeyahay aqoonta iyo kartidii uu leeyahay yaa waxaa leedahay curyaan baa tahay maxaa banaanka kusoo baxday intaas keliya lagu haysta curyaan baa tahay maxaa banaanka kusoo baxday marka wax walba in lagu sameeyo waa lagu sameynaya laakiin waxaysan ogeyn dadkan mataacullahi inay yihiin ilaahay bay leeyihin waxaa kama qaadi kartaan ma fahanta ilaahay baa ilaashanaya ilaahay baa abuurtay haddii tiina aad ka soo bixi weydeen meeshuu mari lahay waxaa ka mid a waxyaabaha la yaabka le magarata dadkan inuu xataa kan gurguuranayay ee dhagaxa aad arkiis ku gurguuranayay aan dhiigan ka imaanin ee aan haddii aan lagu sameeyay meelna aan dilaacin ka war taa lafteeda ma in aayad tahay aayad weyn inay tahay midka gurguuranay ee jayga ku gurguuranay ee dhagaxa ku gurguuranay ee jilbihiisa markaad fiiriso dhiigna aan lahayn xagtinna aan lahayn ma fiirsan walaalayaal ee aan xataa markuu kaa gurguuranay xataa ma oga adi waxaad u haystaa inuu rafaadsan yahay oo uu sheeg ninkaas gurguuran inuu rafaadsan yahay balaayo haysto laakiin may ilaahay baa waxaan qadartan wax walba dhaqaaqay qadarta ilaahay bay ku socdaan ilaahay baa wax kale meeshaan dhigay jilbahana arkaysa dhagaxaan iyo kuma socdaan meel kale ku socdaan oo ilaahay garanayo xataa taa aayadda xataa maarki weydeen hataa soo maartiin arrimaha cajiibka waxaa ka mid ah hadda nimanka aan kasoo sheekeynaa kartidooda iyo magaciisa inta dhibka yaalla wuxuu yahay mataqaanaa hal midna way jirtaa xoogaa yaro oo dadkan yorna kala yiraa marka dambe yurtaada walaala noqonaysaan moogta yurta lafteeda walaala noqonaysaan xoogaa agresif xoogaa yaroo is ilaalina way jirtaa oo indha taaga maanta markii meel ka soco mid kale yurta lafteeda wax isku noqonaysaan ilaahana leh ma garata marka arrimaha cajiibka odaygii hore aan kasoo sheekeynayo adeerka cabdiweli sheekh daahir olaya raxma arrimaha cajiibka ee aayad ah ee aan dadka u fiirsanaynin ee weliba aan meel ku qorta waxaa ka mid ah markay ka sheekeynayeen waxay iga sheegeen awr baa buubaya moogta berigii macdana dee lagu silcinayay dugsiga iyo meelahaas iyo intuusan 20 gaarin curyaanimada lagu silcinayay waxaad aragtay dhowr iyo 10 nin baa la dhalatay awr baa buubaya ani buubitaan weligii xamar xaguma dhaafin buubitaan ma aqaan laakiin markay ka sheekeynayaan geela iyo magiciisigii xataa awr la lisay maxaan ka wadaa awr la lisay ma hal la lisay xataa ma arag ma fahanto awr isbooda maaha geelow oo isfufuulaya ma arag ama isbooday weligii ma meel baan berigaan qaxootiga joognay baan yaa meel war ah oo geelu ka cab yaan tagay moogta say u lahayn weligaa maarata awr iyo waxay abaahinay yiraahdeen moogta awr is abaahinay weligaa awr soomaaliya maarata doob ma aragtay waraxa ma arkin walaalayaal maxaa doob hadda geel is abaahinayo arigaas ila ariga isbuboodayo iyo geel maxay hadda kula duwan yihiin waxbay kaaga sheekeen cilmi bay kaaga dhigayaan moogta geel isbubood aniga marka waxaan si balniyo ma aragtay ay dhigtay markaasaan meel war ah aan tagay moogta meesha warta geela ka cab marka geel ba ka cabo nimankan geelaydan way kula yaabsan meeshu taagnaa inta maxaa raadinay bal waxaan ay sheeg geela iskuray maarta abla soo fiiris geeli man hortaan markaan daalay kii geela wada walaalo fiiri waxaaro ilaahay walaalo mitus kasta geel isfuul horta bin adayo
naga tag buu yiri dhaadhayo geel isfuula de saxaabani gorbu isfuula ana ma soo noqday naga tag buu soo cayri maskastay weligay ma arag geel isfuula iyo awr la lisayo toona ama hal la lisayo wixii la lisayo maxaa aqaan hasha la lisayo oo caana leh marka weligay ma arag haddana aragtida hadda wax saa iga soo xiran malaha hadda laakiin waxaan ku arkay youtube marka waxaan ka soo wadaa geel wuxuu yiraahdeen awrku marka la raro maarta awrku marka la raro inay sheeko badan dhigeysanaya moogta awrku marka la raro ma mar buu uu buubaa dhig marka reer guuraya reer guuraya awrku baa buubaya marka aniga waxaan u fahmay rarka la saaray xariga lagu dhuuji iyagu kuma sheegan wuu buubay oo ku dhig moogta laakiin waxaan u fahmay inuu xanaaqay awrkan xariga lagu dhuujiyay qoryihii iyo wixii tiirarkii iyo wixii baa macnaha lagu meelaha kaliyaha iyo laga muday marka neefkan waa xanaaqa marka wuu xanaaqay wuu ordaa markaas haddana wuxuu ordaa bay yiraahdeen way ka markuu buubanade waxay yiraahdeen wuu buubay at least erayga waad ka yara fahmaysaa wuu orday hadday yiraahdeen waa iska orday wuu yaraha wuu orday uu rucleyn saas سما بو لك waxaa garanaa marka de orodka kii ugu dambeeyay uu galiyay marshadii ugu dambeysay ayuu dalaq si ma garad marka saasa u fahmaya inuu marka si walba intay yeelan dhowr iyo 10 la dhalatay ay soo qaban kari waayeen abdul curyaanka ee afarta adin dhulku taalay ee abdul curyaan ee dhaayeen ee curyaanimada lagu ciqaabay ya balow intuu yiraahdo balow oo ilaahay og yahay marka ka shaqeynayaan de aniga dhabtu isaarji waa arkay macnaha haddaan arkata waa dhanbay aan isagoo orday xataa waa arkay isagoo orday xataa xamar meeshaan ku sheegay xeradaas waxay lahayd garoon buu lahaa garoonka isagoo ku orday xataa waa diyaabaysa ilmo yarna waan ahaa laakiin hadda markaan fiiriyo speedkiisa iyo gadaal markaan ka fiiriyo aan soo xasuusto markuu ii qoweenayay iyo qaabku ii qaadi jiray markuu uu soo qaadaa gaaladu imaana uu iga soo qaadaa halkaan soo saara wax yar buu ila joogay ma umana bil imaana meelahaas iyo xerada ku jiray marka dambe uu baxay waqooyi meelahaas aad iyo Djibouti marka qaabku igu qoween jiray ninka naafada labada lugood iyo labada gacmood dhulka ugu yaalan ee gurguranay qaabku ii qaadi jiray waa cajiba war intuu awrkii buubay balow yiraahdo iyo wuxuu keenayaa wax yar kadib awrkii hayin oo xarig uu ku soo xisto xarigii afka laga xiray ya hogaanka soo hogaami uu keenay cid kale soo qaban karta malan Cabdul Shaqtaan waa ninka curyaanka bal adiga labadaas curyaannimo iyo kii cagaha qabay wuxuu qaban waayay orod ku qaban waayay curyaanka orodka ku soo qabto oo ku keen labada bal adiga is saar hadaysan aayad ahayn aayad cad hadaysan bal labada adiga is saar walaal ha ma xafsanta kuwii la dhashay kulli qaar hadda way noolyiin adeerayaal iyo ku adeer ku ahaa bal labada is saar idinka ha ninkii curyaanka ahay curyaannimada magiisa lagu wixinay kuwii cagaha qabay awkii soo qaban waayay kii curyaanka orodka ku soo qabto bal adiga faham bal waayahay hadaysan aayad ahayn oo mucjiz ku macnaha hadii khawaariq caadada orad buu inta talo isaakiyo curyaanka ee labada lugood labada gacmood dhulku yaaleen oo awrki soo qabto oo uu hayin ku soo xiro yuurar ku soo celinay miisan aayada gabadha hadda ka sheekayna aabeed hooyada isku fureen ninkii waxa dogo ninkan barnaamij haystaan awrki buubay u soo qabtay ma haystaan ay curyaannimadaas hadii moogta sidaba isaga soo carar sidii loogu hay shaydaan ibliis magiis loogu hay isaga soo carar Allahumma xariis waa ninka kali aan markan aan duceynaya ama quraan akhrisan aan u akhriyo aabahay baa aabahay adeerkay ma ahay aabu yaha yani misan macna hadii oo isha oo bila dib idala ma garatay waxa ilma ka muusa tagin mar Allah markaan duceysanayaba وانا ذلك اسم ليه وانا قران بان اخريها الله نحس صديق عبد الشطار اوكي gabadha aan ka sheekeynay lahaa in hooyadii aabeed wuxuu ku soo tureen bari baan arkay waxaan ku yiri iyadoo lacag u diray hooyada ku hays waxa waaye u maleynaya 35 sano baysan hooyadeed meel ay taagan tahayna ma 35 sano يعني ما 35 سنة يعني ما يسن هوية نعرق برجع سيد الله توري ها يعني مركز شط الشيء مريس واحد هذا شيء المهدي يضل لك هذا يعني يقدر الرادين يسوع يعني يقدر الرادين يس هو يكوه سؤال ناس أعطيك تورتي ما حد الله ولا ما
maxaan sameeyaa maxaan sameeyaa ilaahay caasinimo ma ogole runta ole qof saaxiib caqli ah marka gabadhaas markii aan soo qaxnay reerka dambe aabaheed uu sameeyey oo reer maasha allah ayuu aad ugu ronaa iyadaa gacanta ku haysay wixii galay soortii wixii la cunayaa u dhadhami waaye inay dadkan macnaha ay yihiin dad oo meeshuu ilaahay marinayo ma marin kartid waxaanay qabanayaan ma qaban kartid mana beri kartid ma fahantay nasiibka aad lahayd baa ilaahay ku dhaafinaya moogta gabadhii reerkii wixii cuntay tira wallahi anoona baasta reerkana ku casheenin yaa hooyadii dambe aabba sameeyey iyo aabaheediyo inaan yeelin balo bay soo tiray Nairobi bay timid gabadha aragtay kartideeda meelahaas dhar ka qaada xaafadaygas wixii waa u kordhay markii dambe Nakuru Kisumu Mombasa Nairobi business weyn xaafadday nooga tagtay reerkii ay ka tagtay waa reerkii ugu horreeyay baasta ku qadeeyay adilaqah iyo kuleel baa lagu jiray moogta adaga reerkii ugu horreeyay oo baasta ku qadeeyay yaa afku ugu gelisay garanaysaa markii dambena waxa reerkii ciyaalkii dambe iyo saanta ayada dhashay iyo gabar iyadna ka yareed iyo ma garanaysaa oo dad ku waxaan ka wada aabihii iyo wixii oo dhan iyada markii dambe soo wada dhoofisay intay timid oo haddana ku sameeyay soo dhooftay oo qurbaha gashay iyo inta kalena soo qaatay kulligoodna hadda qurbaha joogaan iyagoo wada ku wada socda Toyota Camry iyo magiciisiga kullina iyada Toyota Camry wada saartay kulli inta la dhalatay inta aabaha laftiisa baabuurku wato gurigan buildingkan ay ku jiraan magiciisiga ay kulli raaxadan ay ku jiraan kulli iyada wada iyo gabdhaha ciyaalka Toyota Camry wada wata iyo magiciisiga kulli iyada wada saartay waa gabadhii daraadeed curyaanimada lagu tuuray ayad miyaa sax walaalayaal ha qof walba u curyaana noocaas waa ya marka arrinta waxa waaye oo cajiibka ah waxa igu daran oo aan macnaha xiriirka Soomaalida iyo dadkeeda naafada ka dhaxeeya xiriir wanaagsan ma heer wuxuu maray oo wali ilaa hadda uu taagan yahay in qofka hadduu naafo ilmaha reerka uu ka naafo ilmaha sidii lagu tuuri lahaa walow kuwan qurbaha soo galay ayba iska dhaf kuwa naafada kuwa fiyoobaa si naafeeyaan si lacag ugu qaataan cuqubo kale waa yadna kuwa fiyoobaa naafeeyaan qaar kamid ah afar ciyaar hadeystaan waxay raadinayaan hal ilmaha inay naafeeyaan maskaxda masaxda magaciisa dawo sida loo maqdamo ilmaha si lacag ugu qaataan oo ay macnaha ma garanaysa saacaday عجيب أنا وحوايه ururkan bulshooyinta naafada bahweynta naafada iyo xiriirka ka dhaxeeya Soomaalida waa heerkaas waxa way heerkaas uu taagnaa welina uu taagan yahay wax isbedelay ma aha in wax laga bedelo waay mid kale oo waliba aan la siyaabanayo waxay tahay oo cala xanuunka taagan adduunka marka meel walba fiirsid walaalayaal marka meel walba fiirsid kuwa xataa majuusiga ah kuwa aan diinta haysan ya marka fiiriso iyo Soomaali meesha ay ka taagan yihiin waxa farqi weyn u dhaxeeya oo taas waa inoo soo wada barbardhiga laakiin meeshan yarta ah iga galeysaan raba inaan xoogayeen badhaami oo ah inta oo qofka inta leh oo loogu magac yeeray inta uu leeyahay oo ah aadan jiis cabdi ilay xuseen dhagoole hebel lugay hebel magiciisi adduunka meel kale kuma arkaysa aan Soomaali ahayn Soomaali meel aan ahayn kuma arkaysa ya waan calool xumo ayadna Soomaali meel ahayn kuma arkaysa ya maalin baan meel aan ka shaqeeya gabdho cusub nin baa ka shaqeeya moogta oo isna baaweyntan kamid ah marka aan ugu ka dhutiya marka Soomaali maxay ugu yaraan jeerida macnaha qolyahan reexamarka ah ayaa hebel jiiski wixii laangare iyo curyaan wixii bay dhibsadeen moogta Soomaalida nimanka reexamarka wali marka reexamar leh maaha dadka xamar degan maaha waa nimanka xamar ahay Shangaani iyo xamar weyne iyo Cabdi asalka ah way oo tiraadaan hadii la ku sameeyahay reexamarka asalka ah weeyaan ma garanaysaa عداء ترى إنك عدانتك كم ما جرتين وإذا كقرب بدين
kuwoodii ka qurux badnaa ee afrikaanka aan ma garanaysa quruxda ilaahay siiyey يا ضد كاسة معناها وضد البحر أهاين أو صوماليا أصل كان وياك nimanka way nimanka hadii lagu sameeyay way dhibsadeen magta curiyaan iyo magiciisiga marka xogaa inay waxaan wax ka bedelaan dadka afkooda jeeri macnaha mid oo hees jiray oo jeeri la dhihi jiray waxayna ku magac dareen jeeri okay kii dhutana jeeri way marka dambe marka dambe oo marka dambe waxay ka dhigeen moogtaa inay waxay rabaan jiiskii iyo curiyaankii inay dhaafiyaan mana way dhaafin kari waaye ma garatay marka jeeridii lafteeda waa iska curyaan waay qofka hebel jeeri haddaad tiraahdo adigoo yiri hebel jiis oo kale la mid ah marka yarkaan ninkaan nala shaqeeya hebel jeeri baa la yidhahdaa marka gabdha caddaana waaye oon la shaqeynayay gabdhihi baa marka mid ka mid a way cusbay waxay tiri calagiisanaam magaciisaan jeclahay tir moogta macnaha haddana way sii waday waxay magacii isna buu ka helayo magacii iyo magacoodii waa isku yar ekaada marka taa lafteeda waxooga u yar noqotay ma garanaysaa marka maca jeeri iyagana u fududahay meesha xuseen iyo cabdi magaciisa marka la yiraahdo maxamed iyo isbelin waxaa imaanaya moogta marka jeeri laakiin markii hore ka garanayaan qaabka loo dhigayo qaabka u socdo adiga aan warku ugu daalinayna gabar baa tir magaciisa waan ka helay ani markii baan baraarugay marka awal waan waxaan iska haystay laakiin marka magacii kuma shaqshabaan maya war magacaas aan mooday ma magacu waxay ka wadaan jis bay ka wadaan markuu jis curyaan disabled person handicap disabled moogta iyo handicapkaasi yar hadar may ogolaya handicap qof la yidhahdo person with disability way dhihi qof oo xoogaya naafnimo waa asrbiyada qof xoogoo la yar daristay oo tabar la-aan la daristay handicap haddaa tiraa baxar wey weliba sharciga ugu taalaa qofka inaadan ugu yeeri karin intiisa adduunka kalena waa noocaas waa indha yar iyo kuwa xataa majuusi aan diinta aan lahayn adigoo diin islaam ah haysto inaad macnaha wixii ilaah magaranaysaa inaad gabdhihii wayba ooyi gaareenba markaan ku iri jeeri maahan waa jiis ereygu waa jiis waay af soomaali buu jiis ku yahay baan ku iri af soomaali buu jiis ku yahay oo jeeri ma ereyga af soomaali waa erey soomaali maba dhihinba nin baa loogu magacda waxay maba dhihin badda maxaa galaa waa saas waay jeeri af soomaali macnaheedu waa jiis baan iri saasaan noogu yeera aniga lafta jeeri baa la yidhahdaa ku iri aadan jeeri bay yidhahdaan gabdhihii inay ooyaana walaa ku sugteen kuwa kalaa mid kale usii gudbisa haddaan maalin kala mid kala arko waxay ku tiri mid baa ku tiri aadan baa saa ii sheegay magaciisi tiibaa maalin dambe artay iyadoo uga hubsanaysa aadan waxaas arrintan maran baa run weyaan ku yidhahaa waa jiis weeyaan jeeriga wallahi ilin baa ka timi ilin baa ka imaan karta macnaha dee way qiirata see macnaa qof bilaa aadana aad ugu yeeri kartaa jiis ma garanaysaa marka adigaana warka ugu daalinin magacaasna adduunka kuma arkayso walaalayaal adduunka meel walba haddaad martid kuma arkayso qof aan soomaali ahayn soomaali ahayn kuma arkaysid qof intiisa macnaha oo weliba oo qofka tabaryari ah qof loogu magac darayo aan soomaali ka ahayn kuma arkayso arrintaas waa arkaysa in cuquba tahay moogta ilaahay muxuu yidhi walaa talmizuu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان معناها ولا نفط هذا عاين ولا تلمزوا أنفسكم والنفط نفتينا عاينة والنفتينا هافلقا ديننا ومعناها معيتها حداد قف معناها ولالك عايده أما أفعل اللي قاعد يسو معناها ديردي حق الله وقوانيس إن الظالم تهي هذا النفط هذه معناها هلاقي هذا النفط هذه عاي أو ماجي هذا اسمه هذا واحد سيالي معناه قفنا حماية قف كصعبات لكن حق الله هدي لقانا عكور حق الله ده ظالم كنقط حق الله ظالم كنقط نسا هذا واحد سيالي ولا تلمزوا أنفسكم نفتينا هفلقاتها عاينة ولا تنابزوا بالألقاب ها شو تورتورين أن الناس يالهم الناس يالهم الناس تحنوا ما الناس تحنوا حوين دوح الله روح قفوا وسرالك عين الناس تحنوا نقنسا marka qaar ku iska aqbalaysaa moogta bariga hore marka jiis uu kira tara ma jiis haydin jiis waliba waxa juju taaj waxa way kaaga darayaan marka waa inaad jiis kale iska aqbashaa jiis kale waa iska aqbashaa laakiin haddaad tara iga daayay way kaaga dari marka
ده قصب كان مش يجين لكن قفك وحسن رالي كاهين إلا ويرو إلهي ما أقرأ إلهي محيري بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وحباس لهذا مقعابد أما مقع الاسم باباس لهذا المخصوص بالدمنة الفسوق وفاسق لماذا مقع معناها تكون مقعابس يا المخصوص بالدم الفسوق بيصل اسمه وفاز هذا الفسوق وباس هذا بعد الإيمان معناها أديكم مؤمن قف ونكسنة إن قالته فسقي أو إيش شامبتاعه فسقي إنه قف ولا كا نانس عن فعنين أدوية وسرالك هين أرنتاس باس وأرن باس واي ما أرن نعمة ما هن وهلك وحاول مقرنس ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون وكان كتب كينا وظالم فإله إليه ساس من آياته وانسل وافقنا أمرنا qodobka horani ma oo ku soo gabagabeynaya aan ma aqaan si dadku wax duuduubaan waan daalay madaxii ay karay garbihii ay xanuunay dhuuntii ay qalashay 10 daqiiqo ma hadlin baan u maray aan ma aqaan si wax duubaan dadka wax duuduubo marka maanta waxaan ku soo gabagabeynaya xiriirka dadka Soomaalida iyo dadka naafada ka dhaxeeya ayaan ku soo gabagabeynaya inuusan fiicnayn waxa waaye in wax laga bedelan in loo baahan yahay wax ka bedelku ma aha wuljar la iibiyo ama biro la gado ama magiciisiga waa wacyigelinta saan wadayna in badan oo kamid ah arintii maanta aan tataabanayna waxaan rabaa hadii aan ku sameeyahay inaan rag baa shalay oo kale la soo xiriiray oo bahweynta naafada kamid ah raggaas aan u diinaya waan soo gelin doonaa insha Allah laakiin labada qodob ee kalena bari ama saa dambe ama waqtiga Ilaahay yiraahdo ayaan mid walba soo gelinaya انت كان بحياه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله